heshiiskii maalin ka hor lagu seexay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar kaasoo lagu sheegay inuu yahay dhamaadka dagaalka Gaza ayaa soo bandhigay calaamado muujinaya isbeddel ku dhacaya mowqifkii Mareykanka iyo reer galbeedka ku wajahna bariga dhexe iyo dhaqdhaqaaqyada Islaamiyiinta si tan aad u fahanto Mareykanku wuxuu dagaalo kala duwan ku wajahay dhaqdhaqaaqyada muslimiina habab kala duwan oo isbedelaysay tusaale ahaan Mareykanku wuxuu ahaa fikradda dhalisay Islaamiga jihaadiga sanadkii 1983 waqtiga waxay ahayd markii laga soo wariyay aqalka cadacdo la yaab leh oo markaas soo dhaweeyay dagaalyahanada ee Afghanistan waxayna labada dhinac ka fadhiisteen iyagoo xiran dharka Afgaanida madaxweynihii Mareykanka ee waqtiga waa Ronald Reagan waxa ay markaas siteen dagaalyahanada Afghanistan magaca mujaahidiinta Islaamiga wuxuuna Reagan ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahano u dagaalamaya xorriyadda isagoo halgankooda u ekeysiyay halgankii aabayaashii asaasay Mareykanka laakiin waqti kadib wuxuu ku sheegay Mareykanka mujaahidiintii uu ku safeeyay inay joogaan heerka ugu sarreeya bil-aadan oo ka istaago dagaalka xorriyadda wax kale ma ahan isla Mareykanka ayaa ku sheegay dagaalyahanada Afghanistan inay yihiin argagixiso taasoo dhalisay inuu markii dambe Mareykanku ku duulo Afghanistan laakiin sidee dagaalyahanadii Mareykanku ku tilmaamay inay u halgamayaan xorriyadda uu mar kale ugu sheegay inay yihiin argagixiso ma ahan inaan wax kala raadino farqiga u dhaxeeya labada sifo ee lagu sheegay mujaahidiinta Afghanistan waa waqtiga meesha iyo waxa kaliya uu doonayo Mareykanka tanna waa wajiga siyaasadda iyo danta maalinta taagan aan taariikh kale ku geeyo sidee Mareykanka iyo Sacuudiga u wada sameeyeen halhayskii jihaadiga caalamiga kadibna ay ugu tartameen sida ay uga bari noqon lahaayeen dhacdooyinkooda kahor sharaxaadda su'aashan aan ku siiyo xaqiiqooyinkan aan ku soo laabanna sanadkii 1979 waqtiga midowga Sovieti ayaa ku duulay Afghanistan markiiba waxay qabsadeen dhismayaashii dawladda Afghanistan oo ay ku jireen dhismayaashii xukuumadda ciidanka iyo xataa madaxtooyada Afghanistan ee Kabul iyagoo ka taqlusay madaxweynihii Afghanistan ee xilliga Xafidullah Amin isbeddelka adduunka ee sanadka dhacay ayaa sidoo kale saameyntiisa waxay gaartay Riyadh oo maamul kula tartamaya awoodda diinta uu qabsaday xukunkii Iran koox falaaga ah waxay isku dayeen inay qabsadaan masaajidka barakeysan ee xaramka iyagoo awood iyo hub adeegsanaya kooxda waxa hogaaminaya Juhayman al-Taybi bariga dhexena wuxuu noqday mid wada gubanaya Mareykanka waa halka uu ka dhaliyay hindisaha Islaamiga jihaadiga waxaana sirdoonka Mareykanka ee CIA ay dhiseen howlgalkii Cyclone wuxuuna howlgalkan ku tiirsanaa dhaqaalaha iyo taageerada Sacuudiga oo abaabulay 26,000 oo dagaalyahan telefishinada Sacuudigana waxa laga baahiyay khudbado ku baaqaya jihaadka Afghanistan marka oo 36 dal ay muslimiin isaga kala yimaadeen dunidana lagu faafiyay waxa lagu yeeray Islaamiga ganacsiga oo aad u garanaysid Wahhabi kuwa oo ku sirmay fikraddii CIA oo Sacuudigu u rogay aragti diini ah howlgalka oo gacanta fududeynaysan ay ahayd sirdoonka Pakistan waa halka ay ka dhalatay burburka midowga Sovieti oo ugu dambeyntii hubkiisa kala baxay Afghanistan sanadkii 1989 laba sano kadibna sidoo Mareykanku uu qorsheeyay midowga Sovieti ayaa si dhameystiran u burburay waxaana dhawowday riyadii Mareykanku lahaa laakiin mujaahidiintii Afghanistan kuma aysan guulaysan waqtiga xukunka waxaana dhacay dagaal sokeeye oo xigtay inay Taliban xukunka Afghanistan la wareegto waxa la soo gaaray sanadkii 1996 oo mujaahidiintii Carabeed oo dhalan Afghanistan waxay jihaadkoodii la aadeen Bosnia kadibna Tajikistan iyagoo taageero ka helaya Sacuudiga kuwii Sacuudiga ee doortay inay dalkooda dib ku laabtaan waxaa lagu qaabilay waji ka duwan midkii markii hore ay uga baxeen Sacuudiga halkaana carada ay mujaahidiintu ka qaadeen sida Sacuudiga u khiyaamay waxaa ka dhashay masiir aan la mahdin waa dhismaha ururkii Al-Qaacida oo Osama bin Laden oo kamid ahaa dhalinyaradii loo diray qaybna ka ahaa howlgalkan Pakistanna uu u diray taliyihii sirdoonka Sacuudiga ee xilligaas oo saaxiib dhow ay ahaayeen uu markii dambe u arkay inuu ahaa cadow ku khiyaamay goob aan loo baahnayn si looga argoostana boqortooyada Sacuudiga iyo Mareykanka bin Laden wuxuu dhisay dagaalyahano waxayna fuliyeen weeraro ka dhacay meel aan ka fogin Soomaaliya waa safaaradihii Mareykanku ku lahaa Kenya iyo Tanzania oo dabeeqadii 90-maadkii waxaana xigay weerarkii dunida bedelay ee September 11 sanadkii 2001 haddii uu Mareykanku dhisay Islaami jihaadiga si uu danahiisa u gaaro markii la soo gaaray sanadkii 2001 wuxuu ku duulay Afghanistan isagoo ku andacoonaya inuu la dagaalamayo argagixiso kadibna Ciraaq oo ay xigtay Liibiya haddii ay taasi ahayd isbeddello iyo magacyo u bixinaya Mareykanka si uu danahiisa u gaaro waa maxay isbeddelka lagu arkay xilligan heshiiska Gaza ee maalin ka hor lagu seexay Sharm el-Sheikh Mareykanka iyo Israel waxay ka tanaasuleen fikraddii ahayd in gabi ahaanba la burburiyo Xamaas iyagoo hadda u muuqda inay aqbaleen jiritaankeeda tani wuxuu ka dhashay halgan iska caabin iyo adkaysi dadka reer Gaza
oo muddo 2 sano qasa ka socday waxaana ka dhex muuqanaya heshiiska qodobkaas oo noqonaya kan ugu muhiimsan waana in loo ogolaado Xamaas jiritaan muxuuse noqonaya jiritaanka wuxuu Mareykanka iyo reer galbeedka ay doonayaan in Xamaas laga dhigo urur fulinaya howlgallo gudaha oo aan mar dambe ahayn xoog iska cabin waxay heli doonaan sharciyad siyaasadeed oo xadidan iyadoo si dhow loo kormeeri doono ujeedadu waa in Xamaas loo isticmaalo si qayb u noqoto nidaamka cusub ee amni iyo siyaasadeed ee lagu dhisayo gobolka halkii ay ka ahaan lahayd xoog mucaarad ama iska cabin ka soo horjeeda danaha Mareykanka halkii Sacuudiga uu hogaaminayay dhismaha Islaami Jihaadiga hadda Turkiga ayaa booska galaya Xamaas iyo xulafadeeda sida Iiraan iyo Xisbullah iyo kooxaha kale iska cabinta ayaa fahamay in si ay u noolaadaan ay khasab tahay inay bedelaan doorkoodii iyo fariintoodii waxaa loo arkaa in waqtigu ka dhamaaday mabaadi'dii hore ee ku dhisnaa iska cabin buuxda iyo halgan hubaysan laguna bedelo door cusub oo urur siyaasadeed iyo bulsho Turkiga iyo Qatar waxay ka cabsi qabaan inay lumiyaan saameyntooda gudaha Gaza sida Iiraan uu weyday awoodeedii siyaasadeed ee Lubnaan kadib markay hoos u dhaceen Xisbullah oo ay xigtay in gacanta Iiraan ay ka baxday Syria sababta awgeed Ankara iyo Dooxa waxay hadda isku dayeen inay Xamaas dib u soo celiyaan oo ay dib u dhisaan halkii ay ka lumin lahaayeen si ay u laashadaan doorkooda siyaasadeed iyo awoodeed ee gobolka Bariga Dhexe Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka waxay aaminsan yihiin ururada Islaamiga la maareeyo oo la adeegsado ay ka faa'iido badan tahay in la burburiyo tanna waa halka isbeddelka koowaad uu ka dhacayo aragtidan waxay dib u nooleynaysaa fikirkii hore in Islaami siyaasi laga dhigo qalab lagu xakameeyo bulshada laguna maamulo gobolka Bariga Dhexe halkii laga dhigi lahaa cadow ama khatar fikir oo la laayo ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC SAD Sahal MTN iyo M-Pesa kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka tani waxay si toos ah ugu habboon tahay istiraatiijiyadda cusub ee Mareykanka ee lagu maamulayo gobolka Bariga Dhexe iyadoo la adeegsanayo xoogagii u aqoonsanaa argagixiso taasoo macnaheedu yahay in xukunka iyaga loo dhiibo oo la dhalaan rogo aragtiyadoodii si dabacsanaan lagu muujinayo si uu Mareykankuna halka uga gaaro danihiisa oo ay ka shaqeynayaan cadowgiisa hore halkii uu Mareykanku si toos u faragelin lahaa oo qarash badan uu ku bixin lahaa haddii aragtidan ay sax tahay waxay ka dhigan tahay in Turkiga Qatar iyo shabakadaha ururada Islaamiga ay taageeraan ay ku guuleysteen inay badbaadiyaan Xamaas oo laga saaro qorshihii lagu tirtirayay waxay taasi noqon lahayd guul istiraatiiji oo ay ku bedelaan doorkii hore loona habeeyay si ay ula jaanqaadi lahaayeen qorshaha Mareykanka ee cusub ee lagu maamulayo Bariga Dhexe Xamaas waxaa lagu qasbi doonaa inay bedesho hadalkeeda iyo muuqaalkeeda siyaasadeed iyadoo wali laga faa'iideysanayo astaamo hore oo iska cabina balse lagu dhex darayo aragtiyo cusub oo Mareykanka ujeedadiisu tahay in lagu hago jihada siyaasadeed amni iyo bulsho ee gobolka Bariga Dhexe iska cabintuna waxay noqotay awood aan la jabin karin mar horeba istiraatiijiyaddan waxaa lagu tijaabiyay Syria si aan hore loo arag 8 December waxaa ka dhacay isbeddel weyn Syria xukunkiina waxaa la weeraariyay qoyskii reer Asad ee nusqarniga xukumayay Syria Mareykanka iyo Ruushka ayaa ka aamusay Ahmed Jawlani oo Turkigu gadaal ka taagnaana wuxuu qabsaday xukunka maalmo ka hor xukunka markuu qabsanay 8 December madaxa Jawlani wuxuu Mareykanku ku raadinayay $10 milyan wuxuuna u ahaa dagaalyahan khatar ah oo argagixisa iyo halis amni oo caalami ah laakiin taasi isbeddel ayaa ka dhacay Turkiga isagoo arkaya xaaladda Bariga Dhexe wuxuu la xiriiray Mareykanka isagoo u sheegaya danahayna iyo dantiinaba waxay ku jirtaa Syria waa haddii ay ku wada qanacdaan taasi waxay keentay inuu Mareykanku ku qanaco isagoo markaa arkay khatarta isfidinta ee Syria ka socotay ee Iiraan oo markaas saldhig weyn ku lahayd gudaha Syria isla markaana Syria u adeegsatay jiho iyo marin muhiim ah oo dib ugu dhisto awoodna ay ugu hagto ururka Xisbullah ee Lubnaan Mareykanku xal kasta oo meesha ka saaraya Iiraan laguna jabinayo dhaqaaqii Iiraan ay ka waday Bariga Dhexe ee dhismaha iyo awoodsiinta kooxaheeda oo wax badan ka bedelay awoodii qaab dhismeedka Bariga Dhexe waa uu soo dhaweynayay taasina waa sababta uu u soo kacay Turkiga oo faa'iideystay xaaladdan ka hor dagaalka Gaza Turkigu wuxuu ahaa mid aan magaciisa la sheegin Turkigu wuxuu ku jiray go'doon Israa'iil Masar iyo Gariigu waxay isbahaysi ku ahaayeen in Turkiga la cadaadiyo laguna go'doomiyo badda Mediterranean-ka laakiin dagaalka Gaza albaab ayuu Turkigu noqday wuxuuna ka faa'iideystay fursadda aragtida cusub ee Mareykankana waxay qayb ka tahay fikradaha ka imaanaya Turkiga sida ay sheegeen WHO iyo UNICEF
adeegyada taranka casriga waxay u baahan yihiin ilaalin caafimaad. Marka la joogo Soomaaliya, Amore Specialist Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho kana howlgalaan dhaqaatiir khibrad fog u leh haysana qalab casri ah rabbina kaashanayo ayaa hormuud u ah ilaalinta taranka. Waxa ayna ku guuleysteen in lamaanayaal fara badan ay ka gudbaan caqabada ilmo la'aanta. taasi waa wax laga arkay shirka Sharm el-Sheikh madaxweynaha Mareykanka Trump oo doonaya inuu taariikh sameeyo isbeddelna ku dhalayo dagaalkii dheeraa ee Mareykankooda gobolka Bariga Dhexe ayaa marar kala duwan ammaan ugu qobeeyay Erdogan wuxuu ku sheegay saaxiib iyo nin adag. Tani waxay u muuqataa inay ahayd wax ka imaanaya in Turkigu uu xal u ahaa gaar ahaan Erdogan dhibaatooyinka uu dareemayay Trump. mid ka mid ah dhibaatooyinkaas waxay ahayd in dhawaan shabakadda Mareykanka soo baxday Axios ay ku warantay Trump wuxuu wacay Erdogan wuxuuna ku yiri waxaan ka aamusay wax walba oo aad ka doonaysa Syria markan fadlan i caawi waa in Xamaas ay ku qanacdaa heshiiska aniguna aan noqdaa cidda dhalisan nabadda Bariga Dhexe. Erdogan wuxuu u dhaqaaqay balanta inuu fuliyo wuxuu ka shaqeeyay in Xamaasna ay ogolaato heshiiska. ugu dambeyntiina markii uu qalinka ku seexayay Trump heshiiskaas wuxuu sheegay in qalinkiisan uu soo afjirayo 300 oo sano colaad ka jirtay Bariga Dhexe. colaadaasi waa mid uu Mareykanku ku dhameyn waayo awood iyo muqoonin. xataa Israel oo Mareykanku daba taagnaa waxay awood u yeelan weyday koox iska caabina inay ka soo furato maxaabiis amaba ay jabiso. ugu dambeyntiina waxay garawsadeen isbeddel siyaasadeed isbeddel dhab ahaantii aan kor loogu sheegi karin Israel taasoo rabta inay ismuquuniso oo Bariga Dhexe isku fadiso laakiin ma ahan ishaartu mid caawinaysa. Mareykankuna wuxuu doonayaa isbeddel siyaasadeed mid aan dhaqaale badan lagu lumin haddana magaciisa iyo saameyntiisuba ay dhex taalo Bariga Dhexe. tanina waxay waqti u siinaysaa Mareykanka inuu u helo loolanka caalamiga ee dunida ka socda. waa loolanka ay ku wada jiraan bariga iyo galbeedka. waa loolanka dhaqaale iyo saameyn ee Mareykanku uu kala kulmayo Shiinaha. ma doonayo Mareykanku inuu ku xanibnaado Bariga Dhexe mana uu doonayo inuu Israel ku dhageysto dagaal in lagu sii jiro. taas beddelkeeda waa in la helaa isbeddel uu gacanta u taagtay Erdogan kaasoo hadda ka dhaqan galaya Gaza. waa isbeddel lagu soo tijaabiyay Syria. heshiiska Gaza ee loo arkay heshiis caadi oo xabajoojina wuxuu hadda isku beddelayaa calaamad muujinaysa dhalashada siyaasadda cusub ee Mareykanka ee Bariga Dhexe. siyaasad lagu dhisay nabad iyadoo la adeegsanayo kuwii shalay lala dagaalamayay kadib Syria. Gaza ayaa noqonaysa meel lagu tijaabinayo aragti la mid ah tii Syria balse mar kale taariikhdu waxay muujin doontaa in isbeddelkaasi uu yahay mid lagu badbaadinayo xoogagga Islaamiga balse lagu bedelanayo halgankoodii xorriyadda mid ay gacanta ku hayaan awoodaha dunida.